Jong-un ay aad u liidato isagoo telefishinka CNN baahiyey in hogaamiyihii Kuuriyada Waqooyi qalliin lagaga sameeyay sanbabada sirdoonka dalka Mareykankuna ay ku foogan yihiin inay xoga dheeraada ka helaan xaaladiisa dhabta ah iyagoo sirdoonka Mareykanku diyaarad kuwa waxbasaasa u diray xuduudda labada Kuuriya si ay bal u helaan sanqaro ama muuqaallo ay tix raaci karaan oo caafimaadka Kim Jong-un ku saabsan talaabada oo cadaynaysa sida ay Washington muddada dheer ugu guuldareysatay inay basaasiinteeda geliso gudaha Kuuriyada Waqooyi shakigii ku gadaama nolosha Kim Jong-un ayaa soo kordhay markii uu ka baaqday markiisii ugu horreysay booqashadii xabaashi awowgii Kim Il Sung oo ahaa aasaasihii Kuuriyada Waqooyi iyo madaxweynaheedii horeeyay dadka ka faalado siyaasadda gobolkaasi ay ku taalo Kuuriya waxay aaminsan yihiin in Kim Jong-un uu xanuunsan yahay xanuunkiisuna uu u iman karo sida uu aadamaha kaleba ugu yimaado ee ay u xanuunsadaan waliba xilligan oo cudur faafayaana uu caalamka ku jiro laakiin ay halkaa yihiin sababo keeni kara inuu dhanka sanbabada ka bukoodo sida sigaarka uu aadka u cabo miisaankiisa oo aad u culus iyo isagoo shaqeeya muddo 16 saacadooda maalin walba maadaama uu waajahayo mu'aamarada bannaanka ah oo aad uga digtoon yahay dalal ay ka mid yihiin Mareykanka, Jabaan iyo xitaa Kuuriyada Koonfureed sidoo kalena gudaha dawladdiisa military uu damac kaga iman karo waxaana iskaba adag in macluumaad xaqiiqo ah laga helo gudaha Kuuriyada Waqooyi amaba xaaladda caafimaad ee Kim Jong-un maadaama aan dal shisheeyana loo soo qaadayn si loogu daweeyo oo uu ku qanacsan yihiin cisbitaaladooda dalkooda cid kale oo shisheeyana aanu isku aaminaynba Kim Jong-un oo 60 jira waxaa loo arkaa inuu yahay hogaamiyaha keliya ee ay u taag waayeen dawladda Mareykanka iyo xulafadeeda reer Yurub waxaana uu dalkiisa u dhisay quwad ciidan oo uu ku qalabaysan yahay saanada nukliyeerka iyo gantaalaha balaastikada ee qaaradaha isaga guusha waxaana u suuragalay inay duqeeyaan ciidda dalka Mareykanka iyo waliba saldhigyada Mareykanku ku leeyahay inta badan caalamka sida gobolka bariga fog koonfur bari Aasiya qaarada Yurub iyo gobolka bariga dhexaba waxaana uu diiday inuu ka tanaasulo saanadiisa ilaa ay Mareykanka iyo golaha amniga ee qaramada midoobay marka hore qaadayaan cunqabataynta kala duwan ee Kuuriyada Waqooyi la saaray isagoo 3 jeer la kulmay madaxweyne Donald Trump 3 jeer oo kala ahaa kulankii Singapore ee 2018 kii Hanoi ee 2019 iyo kii xuduudda labada Kuuriya ee isla sanadkaasi dhammaan kulamadana waxa uu Kim Jong-un mar walba hordhigay Trump shuruudaha in si looga wada hadlo hubkiisa nukliyeerka iyo gantaalihiisa radada dheer marka hore si dhammaystiran loo qaado cunaqabataynta saaran dalkiisa taasoo ay Trump iyo kalkaaliyaashiisa siyaasaduna ku dhiiran waayeen maalintii shalay warbaahinta Kuuriyada Waqooyi waxa ay sheegtay in Kim Jong-un uu dhambaalo u kala diray madaxda dalal ay ka mid yihiin Mozambique, Suuriya iyo Kuuriyada Koonfureed laakiin warbaahinta dalka Mareykanku waxa ay ku waramaysaa in hogaamiyihii Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un uu caafimaadkiisu liito oo uu geerina u dhow yahay shaqadiisiina ay haatan hayso gabadha walaashii ee Kim Yong-jong iyadoo xitaa haddii ay taasi dhabowdo oo walaashii xukunka la wareegtana aanay maslaxadii ugu jirin Mareykanka iyo xulafadiisa maadaama ay gabadhaasi tahay mid ka sii adag walaalkeed oo nacaybka ay Mareykanka u qabtaana uu kiisii ka sii daran yahay is-hortaag iyo ka horimaasho ka haatan ka adagna ay ula iman doonto Kim Jong-un ayaa ka faa'iidaystay qaabkii khiyaamada ahaa ee ay dalalka reer galbeedku ula dhaqmeen madaxweynayaashii hore ee Liibiya iyo Ciraaq Muammar al-Gaddafi iyo Saddam Hussein iyagoo Muammar al-Gaddafi ogoleysiiyey inuu burburiyo hubkiisii kiimikada ahaa iyo kiisii biologiga ee uu haystay dabeetana markii ay ogaadeen inuu ka dhabeeyey oo ka takhalusay hubkiisii ay ku soo duuleen oo isagiina dileen dalkiisiina baabi'iyeen oo ilaa maantana uu dagaal sukaya ka socdo si taa la mid ahna duulaankii ay Saddam Hussein kaga xoreeyeen Kuwait ka bacdi ay cunaqabatayn saareen markii uu ku jilcay military ahaan iyo dhaqaale ahaanba ay wadamada reer galbeedka ee Mareykanku horkacayay u soo jeediyeen Saddam Hussein in haddii uu ogolaado baarayaasha qaramada midoobay inay xaqiijiyaan inaanu haysan hub kiimikada ay u ogolaan doonaan in Ciraaq ku soo noqoto xaaladeedii caadiga ahayd oo ay wada noolaansho iyaga dhex maraana diyaar u leeyihiin
taasoo uu rumaystay Saddam Hussein oo u ogolaaday baadhayaasha qaramada midoobay inay baadhaan xeriyihii ciidamadiisa iyo xarumihiisii cilmi baadhiseed markii ay xaqiiqsadeen inaanu wax huba haysanna ay marmarsiyo kale u samaysteen oo ku eedeeyeen inuu shabakadda alqaacida xidhiir la leeyahay dabeetana ay duulaan ku soo qaadeen oo dowladdiisiina dumiyeen isagiina dileen dalkiisii iyo dadweynihiisiina qabsadeen waxaana la aaminsan yahay in wixii ka dambeeyey duulaankii Maraykanka iyo xulafadiisa ku qaadeen Ciraaq sanadkii 2003 in dalka lagu dilay ilaa 1 milyan oo qof ilaa maantana aanu dalkii Ciraaq iyo dowladnimadiisii midna dib u soo noqonin khiyaamooyinkii nooca ahaa ee dhacayna waxay sabab u noqdeen in xukuumadda Iiraan ay si taxadar leh u gashay heshiiskii ay la gashay wadamada lixda ee shanta golaha amniga ku jira iyo dalka Jarmalka iyadoo xukuumadda Iiraan ee Xasan Ruuxaani ay heshiiskii barnaamijkeeda nukliyeerka ee 2015 ay la gelisay wadamadaasi ay ka codsatay oo shuruud ku hordhigtay in lagu soo daro dalalka Shiinaha iyo Ruushka iyadoo inkastoo ay ogolaatay inay joojiso horumarinta barnaamijkeeda nukliyeerka haddana uu heshiiskaasi fursad kale u ahaa Iiraan oo cunaqabatayntii saarnaydna laga qaaday loona soo fasaxay dhaqaalihii badnaa ee Iiraan lahayd ee ku xayirnaa bangiyada dalalka shisheeye laakiin nasiib xumo markii uu Trump soo galay aqalka cad ee dalka Maraykanka sanadkii 2016 uu dhowr bilood ka bacdiba ka baxay heshiiska nukliyeerka Iiraan oo cunaqabatayntii iyo cadaadiskii siyaasadeedna ku soo celiyey Kim Jong-un oo casharada ka faa'iideysanaya waxa uu meel sare gaarsiiyay quwadda ciidan iyo tuhub ee dalkiisa waxaana uu diiday inuu wax tanaasulaad uu ka bixiyo burburinta hubkiisa nukliyeerka ilaa laga wada qaado cunaqabataynta la saaray allahayow cadiimow casiisow jabbaarow rabbigii candhuuftiiyo cadyar naga abuurow kaan caabudnaayeen ciidda ugu sujuudnow caam ahaan adduunkii cudur baa haleelo cududda iyo xooggii hub caddaanu haysto laysaga cabsiiyiyo culimadii aqoontiiyo colkii saynisyahankii cilmi baadhayaashii xag kastaba u cararo weli way cakirantee cadaabiye jannaalow ciirdarroorshihii carradoo mid dhimatee dibisoo cagaarshow carruur koryihiiyow risa cayimihiiyow cidduu raba u buux